Check, come with me, come with me. This two, you can call him. This one. I don't want to open here. Yeah. How do you open here in the documents? We've been here. Here's an official. You need to give your license to the official. Where's your license? Huh? And you documented. Give the official your documents. Hello? Give the official your documents. Where are your passports? Where are your documents? Give it to the official so that he can check. Give it to him. warbixinteena ku socon oo aan ka hadli doono caawa dhacdooyinkii dhacay xilliyadii la soo dhaafay bal horta warbixintan aan daaro mid ka mid ah journalistayaasha ugu caansan dalkan Koonfur Afrika warbaahinada ugu waaweyn ka soo shaqeeyay oo imaana Rabbiti la hadalka ay ku hadlayso. Angry residents are demanding that all spaza shops be owned by South Africans only. They have rejected President Cyril Ramaphosa's call for all spaza shops, including foreign-owned ones, to register their businesses. Our Lumka Bekindawa has more on the story. Lumka, good morning. A great deal of anger where you are. Just share with us some of the sentiments from the community, but also some of the community activists that have taken this on. تعاونك صحافة South Africa caanka waliba maxtaramada waliba journalistayaasha kala xushmeeyay kamid ah siyaasiyiinta iyo markay hortagtay iyo waraysidii markii dhiibisay wararkeeda lagu kalsoon yahay TV badan oo dalkan Koonfur Afrika magac kale ka soo shaqeeyay oo kamid ah TV-ga ugu weyn ee NCA News Channel Africa waxa ay ku hadlaysaa markaad dhageysid waxay ku leedahay macnaha dadweynaha xanaaqsan ayaa ka hor istaagay inay is-register gareeyaan dukaanada ajaanibta waxaana ku weheliyay leeyahay dad activistayaal oo community u shaqeeya waa niman criminal activistayaal ay ku tilmaamaysaa residentska iyo dadka deegaanka waxay ku tilmaamaysaa dad dambiilayaal oo crime ku dhaqmayo iyo booliska waliba soo raacay oo ayagana nimankaas criminalkaas soo weeliyay macnaheedu dawladda dhanbani dawlad maafiya tahay ayaad arkaysaa fiidiyodan bal aan ku socono. The community members and some supporters of the operation Tudula chasing out the foreign nationals. They were told, you don't want these people, the foreign nationals, to register their business. Why? We are agitated and we are very disappointed by the leaders who were supposed to lead this country properly. We are cross because during the week, the president addressed the nation. Instead of resolving the problems that are affecting South Africans concerning these shops that are run by foreigners from different countries, instead of the president taking a decisive action and implementing it, he took a wrong decision to say foreigners must be allowed to register businesses. These jobs, these shops must be reserved to be run and operated by South Africa, as is the local economy, it's our livelihood. Then we are puzzled to say, sidii nin mas'uul dawladeed ama nin xisbi mucaarad hogaamiyo ayuu dadka inuu isku soo qaban qaabiyay taageerayaashiisa ahaa oo marna booliska horkaca oo dadkan sharciga wadiyay dukaamada xiran leh marna xaruntii dawladdu inuu hor istaago oo wuxuu leeyahay wax ajnabi oo register gareena male bal aan ku socono bal dhaqdhaqaaqiisa. To say the president, after such an advice, after he saw what is being happening all over the country, decided to issue a statement and allow foreigners to operate businesses. As Operation Dodula, as the community, we are here to oppose that. No foreigner will come to UCB today and to register a business. These businesses must be reserved for South Africans. That 500 million that was reserved by the president must finance the South Africans who are here. Yes, it's true. We don't want them here. We are not going to allow them to open the shops here or sell everything. And we don't want them to be registered. We want them to go away because we, the South Africans, we can't do anything because of this. We can't even sell. Just now our children are dead. We don't know what's going on since they come here. So we are not going to allow them. madaxweynihii ugu sarreeyay dalka Koonfur Afrika warkiisii ayayba taagan yihiin bannin iska hadlay oo danteena aan wadin way tagin wax ayaga ay u meeriyeen
inuu ku hadlay sugayeenba macnuhu meesha nin mas-uul oo madaxweynuhu dalal la xifaaltama oo hadhow dalal hortaga oo wuxuu kula hadlaa inuu sheega la rabo inuu yahay maba ogaba bal aan ku soconnaba laxmaqiinteen chasing out the foreign nationals, and we've heard them saying that they don't want them to be registered, to register their businesses. What is your take on that? So this is a demonstration that we are hard for. We can't have foreign nationals running spaza shops. We've been saying this. But our own president decides to prioritize them over us as citizens. If you see there's a group of people there, they are South Africans. They want to come in and register. We said that's fine. But they are turning them away to say they must go to town. When foreign nationals have been registering their businesses throughout in the very same office, we cannot have a president that is going to prioritize foreign nationals. There's a 500 million that's dedicated to be helping in renovations of these spaza shops so that they are clean and all that. It's probably 10% of South Africans owning spaza shops. binteeda mise qarsan warbaahinta waxay loo taagan tahay xafiiskan dadka ajaanib markii qofka South African yimaado rataanka aad leeyahay qofka ajnabiga isla markiiba waa laga caawinaa macnaha been cad oo ujeedada xitaa officialkii macnaha dawladda ka sheegaysa warbaahinta ila taagan tahay macnaha welina qof accountability ama u qabanaya ma jiro waxa ay sameynayso crime-keeda ay ka cadaysanayso toos ay u cadaysanayso waxay leedahay 5 million oo loogu talagalay ganacsatada waxaa qaadanaya lagu caawinaa dad ajaanibi macnaha go-aan ayada ay leedahay qaatay foreign shop waa inaan inta laga furnay leedahay go-aan ayada ay leedahay sidii inayba dalka ayadu madaxweyne ka taho ayadu ay wasiir ka taho wax walba ay ka tahay macnaha marka dowladda koonfur afrika waxay ku filan leedahay waxaa inay xirtaa haddii dowlad adag ay tahay waa It's probably 10% of South Africans owning spaza shops. Are we saying this 500 million will cater foreign nationals? We can't allow that. And it's time that we recall Mr. Cyril Ramaphosa as the president, because it's clear he's not for us as South Africans, but he is for foreign nationals. I mean, the law is clear. If you are here in South Africa as a foreign nationals, you're here as, to be trading. There's a minimum of 5 million that needs to be invested. You can't have a 5 million and invest in a spaza shop. That's why it needs to be reserved for South Africans. And that's what is going to happen. We're going to make sure that South Africans are the only people that will be running these spaza shops. Whether you're legal or illegal in this country, we are reserving spaza shops. In actual fact, township economy as a whole, your barber shops, your mini bakeries, needs to be reserved for South Africans. xitaa qoftan waxaad moodaa in madaxweynaheeda harkadalkiisii xitaa aysan si fiican u dhegeysanba oo wax iyada ay leedahay isku soo dardarsatay islamarkaasna ay rabto inay go-aan keligeed iska samaysato oo dowladda koonfur afrika waxayna dhehen xitaa ay ka sheegto oo maxaan ku yidhaahdaa macnaha dowladda koonfur afrika ayaa la rabay inay talaabo ka qaato waxaa la yaab haddana boolis ayaga ay wataan isku luqad ku hadlaan ayay soo wateenay dadka waxay rabaan uga samaysanaan warar fiidiyooda qaar waxaa soo baxaya booliskii oo la leeyahay alaabtan qaada bannaanka u tuura waxaan ka tuura sharcigan weydiiya la leeyahay arkaysaa waa wax lala yaabay marka waxaanoo kale wax lala yaabo laakiin dowladda koonfur afrika dadkan afrikaanka oo meeshan joogasaan loo galaa dowladda la xisaabtamo inay lahaadaan ku fiicnaan lahayd nimankan ka sheekeynayna waa nimanka duduula operation oo ahaa nimankii dhibkaan oo dhan kiciyey kuwa sunta kusoo dara cunnada kuwa dadka usoo diray inay dukaamada ka boobaan oo si toos ayagoon maanta qarsanin u hor istaagaya dadkii dukaamada rajiskaraysanayay boolisna usoo watay inay dukaamadii sii xiraan baayado madaxweynihii South Africa uu hadlo 21 beri uu siiyey inay isku soo rajiskarayaan islamarkaana sii shaqaystaan wax lala yaaba ayay noqotay welina ilaa hadda sarkaal dowladeed oo ka hadla ma jiro walo madaxweynihii warkaan soo saaray Brazil uu jira sida lasoo warinayo marka nimankan duduula operation ayaa ayagoonan qarsan warbaahintuna aad u taageerayso activist ay ku magacaabaysa activist oo qof walba inuu howlgalo shaqo qabto dadka u adeego waa niman criminal oo tuuga kulligood xabsiyada laga soo wada daayay oo wax ay qabtaan aan jeerino nacrad ku dhacdo marka dadkaas oo kale inta badan gobolada ay aad ku fogayeen oo goboladaas hadda oo maxaan ku yiraahdaa madowga u badan yihiin waa meelaha qaar ma tegi karaan baaba dhagaha lagu dhufan lahaa meelaha qaar South Africa nafteeda tagan ayaga naftooda meelaha qaar South Africa foranka oo sida foranka loola tiriid karayaa marka nimankan ayaa waxay ku cadaarataa inay yihiin nimankii
wixii dhaco dhanka dambeeya hadda ka horna saasoo kale wax uga dambeeyeen waa idin salaameynaa wararka subaxa waxoogaa warbixinta waa nagu dheeraatay maadaama aan soo jiri karin warkaan oo qasabeed inaan dadka lasoo wadaagno aadaan u mahadsantihiin saaxiib